kulanti wanaagsan marka u horeysana waxaan jeclahay inaan ka tacsiyeeyo tacsidii ku dhacday geeridii xalay ku dhacday walaal ka mid a walaalada Soomaaliyeed oo dadka iyo dowladda Soomaaliyeed u shaqeynayay cabdixakiin cabdiraxmaan dhagajuun oo ahaa gudoomiyihii degmada Hodan oo xalay la dilay waxaanu insha Allah tacaala waraysi kooban la yeelanaynaa eheladiisa qaar ka mid ah gaar ahaan Axmed Kaboole oo asagu iminka jooga dalka Turkiga oo aan jeclahay inaan ka waraysto intaan waraysigan u guda gelinin tacsidan aan la qaybsano isla marhaantaana aan weydiino waxay marka hore isku yihiin asaga iyo marxuumku si uu nooga dhaco Axmed soo dhawow cabdixafiid aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay aniga iyo cabdixakiin waxaana kala dhalay laba isla dhalataana kala dhashay hooyadiis waxaa la yidhahdaa xaawo xirsi xaashi anigana hooyadii waxaa la yidhahdaa sacdiyo xirsi xaashi sidoo kaleeta cabdixakiin waxaan ahayn laba qof oo isku meel ku soo kortay ilma adeerna waana waa gartay dib waxaanu ka eegi doonaa qofku ahaa iyo hamigiisii iyo wuxuu ku riyoonayay iyo shaqadii uu dalka iyo dadka u hayay marxuumka Allah u naxariista laakiin marka hore waxaan rabaa inaan wax ka weydiiyo sidee ayaad ku maqasheen geeridan lama filaanka cabdixakiin waxaan ugu imid dalka Turkiga maadaama uu dhaawac ahay oo Muqdisho laga keenay Turkiga markaan ugu imidna waxaan sagootinay habeenkii talaadada ahayd ayaan u malaynaa inay ahayd wuxuu rabay inuu aado magaalada Muqdisho wuxuu yiri caafimaad hadda artan xoogaa lugti way kabantay waana laga furay birihii waa laga furay sidaas daraadeed shaqa ay taala marka waan baxayaa marka habeen dhaweed ayaan ku macsalaamin halkan shalay ayuu ka degay magaalada Muqdisho xalana runtii waqti dambe waxaa naloo soo sheegay geeridiisa waqti labadii habeennimo ay u ahayd dalkan Turkiga waa naloo soo sheegay geeridiisa marka saasana ku maqalay runtii waa gartay marka maxaa dhacay baa idinku yiri say wax u dhaceen dilkan yaa ka dambeeyay waxa saxaafadda la isla dhexmarayaa gaar ahaan social media hadallo fara badan oo qaarkood dadka la isku soo faynayo oo siyaabo kala duwan looga falcelinayo dadkuna marka ay doonayaan dadka inay ku kiciyaan bal adiga cid kaaga dhow malahan oo walaalkaabu ahaa dilkan suu ku dhacay maxaad kala socoto runtii waqti dambe maadaama ay ahayd waa si garan kartaa dhacdaduna ay ahayd dhacdo maaragtay nagu cusub waan qaada weynay sababtoo qof aad walaalka oo maanta kala tagteen oo shalay runtii dhaawac asagoo aadna maanta la celiyay dana daqiiqado ka bacdi hebel waa dhintay message-kaas ah heshid xanuunkeeda ay leedahay marka sidii wax u dhacaanba focuska maana saarine waxaan isku daynay inaan dadka qaraabada ahay ama ilmihii iyo gabdhihii iyo in aan la hadalno oo aan u sheegno geeridu inay tahay xaq qof kastana uu dhimanaa cabdixakiin ayaa hamiinkiisii xalay ahayd intaas ka bacdi runtii waxbaan dhagaynay maadaama dalkii xiriir fiicanna aan la lahayn dadka qaarna dhacdooyinkii si fiican uga warqabeen in ay dhacdadan aysan ahayn runtii dhacdo oo ama planid ahayd ama laga sii fakar ay ahayd inaysan ahayn u muuqataa cabdixakiin wuxuu ahaa qof walaalkeena qof bulshada Soomaaliyeed sida ay uga falcelisana laga dareemayo kaliya gudoomiye muu ahayne cabdixakiin waqti badan wuxuu ahaa dhalinyarada xaafadda degmada Hodan dad Muqdisho laga yaqaano arday iyo siyaasi iyo ciidan iyo qolo kastana runtii ixtiraam ku dhex lahaay dalkan Sweden laftirkeeda marka uu ka yimid cabdixakiin oo ilmihiisii deganayeen meel kasta ninka ixtiraam oo runtii ahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto nolol kastaba maalin ay go'aysaa xanuunkaasu si qaraab ahaanna uu noo taabtay si dad dhalinyaro ah oo isla soo koray oo ash wadaag ahay oo kaftan wadaag ahay oo habeen hore isugu dambeysay oo kaftamayay waxa waaye waa bixitaankiisa adigu waa dareemi kartaa haddana markii dhacdadii dib loo sii fiiriyo sida ay wax ku dhaceen oo kale runtii waa qolada hadda hartaan la leeyahay baaritaana ama ku socda ama meesha howlgallada madaxda ka ahay iyo cabdixakiin dad walaalahay ahaayeen dadkii dad isugu dhoway ahaayeen dad laga malaysanayo ma ahayn in ay gacantooda ku baxayso laakiin ilaahi subxaana wa tacaala wixii uu qoro yacni qoran yihiin halkala tashamaayo example haddaan kuu soo qaato oo kaleeto ninka la yidhaahdo taliyaha degmada howlwadaag Shucayb Cabdi oo ka mid ah hadeertan dadka la soo dhigay ee website-yada media la soo dhigay cabdixakiin walaalkiisu ahaa ninkii dad ugu dhawaayay shalay markuu magaalada Muqdisho imaanayay
dad walaalahay iyo kaleetaa raacay maadaama arrimo kaleeta meesha ay ka jireen ciidamadiisa iyo soo dhaweynayay marka musiibaa dhacday musiibada dhacday waxay runtii aan aniga hadda kala dareema waxay ahayd qof oo laba qof oo saaxiibo ah isjeclaay walaalo ahaay si kama ah in intiiskaga maaragta arrintaas ay ku dhacday musiibadana waxaa waaye dalka soomaaliya habeenkii waa taqaanta waa meel iska fronti ah waa meel mataqaana qolooyinka al-shabaab iyo qolooyin kaleeto iska hobays ka jiraan qadafkaasna runtii qofkii ugu horreeyay ku dhintana cabdixakiin ma ahayn laakiin annaga ka qaraabo ahaan ka walaal ahaan ka qof dareen la ahaantiisa ka aqoonta aan u leeyahay dadka dhallinyarada qaarkood oo operation-ka fulinayay inkastoo baaritaan uu socdo baaritaankuna uu soo maaragtay meesha lagu talagalay uu tegayo axmedow waa dhaqdhaqaaqaysaa inaadan dhaqdhaqaaqin hadday macquul tahay kaamaradaada waa dhaqdhaqaaqaysaa wado marka ujeedada hadeertan anoo ka faa'iidaysanaya cabdixafiidow halkan la iska arko waxaan ugu baaqaynaa dadka siyaasiyiinta ah dadka qaraabada ah inay isdejiyaan cabdixakiin waa dhintay cabdixakiin ma soo noqonayo laakiin ha yeeshee dadka kale oo ama ilaahay amarkiis waxaana ugu dhaceen inaan lagu dhibaataynin ama aan la siyaasadaynin arrintaasaan rabnaa inaan soo jeedino mas-uuliyiinta dowladda ha noqdeen dadka qaraabada ha noqdeen aniga waxaan ka warqabaa howlo badan ka warqabaa walaalahan gacantooda ma aysan qaban cabdixakiin ilaahay amarkiisa ku dhacday wax kastoo dhacba marka baaritaanka iyadoo la ixtiraamayo iyadoo nidaamka dowladnimada la raacayo ayay waxaan rabnaa in laga ilaaliyo badanaa inaan barnaamijkan la qabiilayn inaan barnaamijkan la siyaasadayn in aan lagu dhibaatayn oo is laba namar nagu noqon iyadoo arrimo kale looga faa'iidaysanayo arrintaas aad iyo aad muhiim u ah waa gartay waxaad sheegtay shucayb oo kala sheegtay iyo dadkii kale oo ka dhowaa idinku qoys ahaan waxaad rumaysan tihiin dadkaas shucayb uu ku jiray dadkii dad ugu dhowaa saaxiibadiisa ahaa oo ku kalsoonaa inay ahaayeen marxuumku aysan suurtagalna ahayn maaragtay in dadkaasu ayagu maaragtay falkaas ay geysteen hadalkaagu saas miya horta qoyska cabdixakiin anigu hadeertaan si gaara ilaa waqti dambe oo la wada hadla maahane si gaara uma matalo laakiin maadaama aan ka tirsanahay qof aanan ka mid ahay runtii dadkii qoyska ama ka muuqday ama wax ka dhihi kara ayaga laftirkooda meel kastoo ay joogaan waxaan ugu baaqaynaa cabdixakiin wadaad iga yareeda wahay cabdixakiin waan jeclaay qof kasta oo soomaaliya oo dhallinyaro ah na wuu dareemi karaa waxaan rabnaa marka dabadiis inahay inuusan la fidnaynin dad kalena aysan dhibaato ugu gaarin waxaan rabnaa arrinta cabdixakiin dhiiggiisa inaan la fidnaynin qof kasta oo soomaaliya qof kasta oo cabdixakiin jeclaay qof kasta oo aaminsanay cabdixakiin inuu ahaa nin actifa oo dhallinyaro oo soomaalinimada ku dheer tahay ha u duceeyo in ilaahi subxaana watacaala maalinta qiyaamaha godkiisa in ilaahay maaragtay u fududeeyo laakiin waxaan aqbalay waxay tahay walaalayaalow yaan la siyaasadaynin yaan la qabiilaynin yaan balaayo kale la kicinin dhimashadii cabdixakiin waxay ku dhacday sidii alla ugu talagalay waan ka digaynaa ma doonayno waanan sheegaynaa arrinta cabdixakiin si cadliya waafaqsan sharciga soomaaliya waafaqsan sharciga islaamka waafaqsan ehelnimada iyo dadnimada iyo walaaltinimada in loo maro oo wax kasta oo dadka isku xumay kara dadka isku kala dili karana laga ilaaliyo cabdixakiin iyo shucayb qabiil ma kala ahayn wax qabiila maysaa kala ahayn dad isku weel wax ku cuno dad walaalo ah dad isku dhimana dhammaanteena ah marka arrintaasaan waxaad ku dheeraatay dabcan inaan la siyaasadaynin la qabiilaynin oo markaas dhibaato hor leh iyo dad markaa laga yaabo inay dana gaara leeyihiin aysan ku meel marsanin danahooda gaarka muhiimad intee la-eg ayay leedahay dadka social mediaha ku jiro oo dadka sawiradooda baahinaya ayagoon waxba hubsanin waxba aan la soconin dad eedaynaya dadka qabiil iyo qabyaalad ku kicinaya inay ka waantoobaan idinkana aysan idin matalinin muhiimad intee la-eg bay leedahay runtii cabdixafiido waa nasiib darro dadka soomaaliya waxaa moodaa dowladnimada ha burburto laakiin dhaqankii iyo ixtiraamkii iyo wixii dhammaa inay burbureen keliya cabdixakiin ahane musiibooyinkii hore oo dalka ka dhacayay runtii waxa la qaybinaya ama social media dadka qulubtooda in la ilaaliyo aad ay u fiican tahay dadkii qaraabadahay in la ilaaliyo aad ay u fiican tahay marka annagu waxaan ku ekaysanaynaa waxay tahay dadka soomaalida waa iska taqaanaa social media say u isticmaalaan waxaan ku ekaysanaynaa maadaama aan nahay dadkii qaraabadii cabdixakiin maadaama aan nahay walaalihii cabdixakiin qofkii cabdixakiin jeclaay
oo walaalkiisa u ahay oo saaxiibkiisii ahay inuu wanaagga iyo khayrka faafiyo intaasaan ku ekaysanaynaa waxaan ku ekaysanaynaa sidoo kale dadka kale oo qaraabada ah in cabdixakiin dabadiis inaysan fidna abuurmin dadka musiibada waa dhacdaa ilaahay subxaana watacaalana ha noo wada fududeeyo laakiin in aan positive dhanka ah badana in loo fakero aan anigu dadka qabaan ku jiraa dadkii walaalaha ahay oo cabdixakiin lasoo shaqeeyey kuwii gurmaday kuwii reaction ka bixiyey dadkii soomaaliyeed meel kasta ay joogaan oo noo soo xiriirana waxaan leenahay aad iyo aad ayaa umahadsantihiin waan maseejadiina iyo qoraaladiina iyo hadalladiina dhammaantiin waan qabnay marka waa mahadsanyihiin waagarta waxaan kaloo rabay inaan wax kaa weydiiyo axmedow muhiimad intee leeg ayay leedahay ciidamada amniga baaritaankooda in loo daayo ayaga laga warsugo intay soo warcelinayaan say wax u dhaceen dabcan waxay la hadlayaan saxaafadda dadkao dhan bay wargelinayaan ayagoo marka hore eheladii iyo qaraabadii wargelin doona sida inta badanba dhacda muhiimad intee leeg ayay leedahay cabdixafiid waxaan ixtiraamaynaa processka nidaamka dawliga hoos jooga waan ixtiraamaynaa wax kasta oo cadaalad ah in maaragtay la sameeyo aniga waxaa laga yaabaa hadda ka qaraaba ahaan in ogaalkaygu yani uu xad yahay laakiin nidaamka dawliga waan aaminsanaa in loo daayo aan la faragelinin wixii ka soo baxana lala wadaago laakiin qaabka barnaamijka ah maaragtay assassination u ahaay qaab qabiil u ahaay dakan u ahaay jidgooya loo dhigay arrintaas waxaan u malaynaa in laga badbadiyey marka la fiiriyo qaabka sida wax u dhaceen iyo dadka operationka fulinayay aqoonta gaar ah aan u leenahay iyo hadalkii dambe waxaan la hadalnay marka waxaan leenahay insha allahu arrintaas in la dejiyo cabdixakiinna loo duceeyo arrinta dowladda iyo baaritaankana inaan ixtiraamno waddo saxan ay ku socoto waa nidaam dawliya waa nidaam cadaaliya laakiin aan la faragashanin loona fuliyo sidii saxda ahay waa gartay haddaan intaa ka tagno adoo soo koobaya habeen hore isugukiin dambeysay isagoo loo booga dhayay buu dib u noqday riyo iyo raja ka dhex guuxaysay waxyaaluhu jeclaa marxuumku inuu qabto waayahan soo dhow iyo goolka fog uu tiigsanaya muxuu ahaa markaad dib u fiirisid xusuustaada runtii hamin dhaweed waan kaftamaynay waxaan ku kaftamaynay waxay ahayd warniyow dalkii nabad maahane xaggeed ugu socotaa wuxuu yidhi haddaan nabadda annagu aanan ka mid noqonin oona nabadda yani haddii aanan ku noqonin qof kaloo ku noqolahay ma lahan shaqa ii taalla waan baxayaa haddee kullu nafsin daa'iqatulmawt waxa waaye ilaa qaliilun haddii meel kasta laisugu jiro waa laisgeynayaa laakiin cabdixakiin wuxuu ahaa qof annaga cabdixakiin wuxuu yimid dalka Sweden 2012 ilmihiisuna magaalada Stockholm ay degan yihiin markuu yimid hore ka baxay wuxuu yidhi aniga intaan xoog leeyahay dalaan dhaqankoodii bartay diintoodii bartay ka dhashay halkaasaana ku dhimana halkaasaana ku jooga markii koowaad ku dhacda maan cabdixakiin ilaa 7 jeer oo ku dhaawacmay Soomaaliya nidaamkan dawliga dhexdiisa oo ku dhex dhaawacmay runtii nin mustaqbal leh xamil rajo leh yadadiilo leh raba inuu sii tilaabsadona ahay waanse ka xunnahay dad badan oo soo kamid yahay oo hamigaas lahaayay ay ku timid annagana waa nagu imanaysaa marka cabdixakiin farxad iyo sawir qurux badan oo Soomaaliya iyo qaabka kala guurka doorashada iyo waxyaalahaas ka sheekaysanaynayo wali si positive dadka qabay waay inaan dhibaato dhacaynin in dalkan hore u sii soconaya inaan yani dhacdooyinkii hore ku dhacay oo dhaawac gaarsiinaysa niyad jabinaynin arrintaasaan ka sheekaysanayna runtii markaad eegtid shaqadii uu hayay oo ummadda Soomaaliyeed u hayay habeenii maalin u taagnaa 7 jeer uu ku dhaawacmay haatana naftiisii uu ku waayay inuu dadkiisa iyo dalkiisa u shaqeeyo aragti fikir noocee ayuu ka qabay annagoo ognahay xaaladda dalkeenu ku sugan yahay aragtida uu ka qabo waxay ahayd aragtidii runtii Sweden ka soo waday oo yiri haddaan ku gaajoonayo iyo haddaan dhimanayo iyo annagu maadaama qaraabadii ay badanaa bannaankan joognaa dalalkan noolnahay isaguna uu deegaanaasho ka haysa dalkii waxaan dhahaynay inuu ka soo tago dalkan ma joogi kartid dalkan dhibaato dalkan waxaan sameeynay laakiin cabdixakiin wuxuu qabay in aan leenahay Soomaaliya inaan Soomaaliya ka shaqeyno inaan u dhimanayo barnaamijka argagixisada dadka niyad jabinaysana inaysan ahayn in dalka loo kala cararo dalka lagu dhintay dhaxaluna ku dhintay waxaa xusid mudan in
aan maqlaynay hadda go'aan in lagu gaaray in lagu aaso guriga degmada hodan marka waan xusuusan doonnaa walaalkeen qalbiyadana kama go'i doono shaqadii ummadda Soomaaliyeed qabtana allaha ajar iyo xasanaad ka siiyo intii khayr ahayd xaqiiqatan waxa weeye dad fara badan oo daawanaya barnaamijkan ayay dhiirro gelinaysaa inay arkaan inuu Sweden ka soo tago dalkiisa horumarkiisa iyo dhismihiisa uu ka qayb qaato isagoo intaasoo jeer ku dhaawacmay haddana mar walba aaminsanaa Soomaaliya inay marcagaheeda ku istaagaysa qaybna uu ka noqdo qadar ilaahay baa kolley ku dhacday ilaahayna waa facalu lima yuriid wuuna ku saxsan yahay ilaahay waxaan uga baryaynaa dambi dhaaf iyo inuu jannada ka waraabiyo marxuumku meequu ka tegey ubad marxuumku wuxuu ka tegey 3 cunug uu ka tegey 2 gabdhood iyo wiil uu ka tegey marka da'adooda waa maxaa ku qiyaas lahayd da'adoodu waa da'ada ilaa 5 sano iyo 6 sano iyo isku jira ilaa 7 jir hadda qiyaas exact ma hay sanadkii laakiin da'ada ilaa 7 sano ilaa 5 jir waxaan insha allahu tacaala jecelahay inaan ehel iyo qaraabadiina iyo gabadhii uu ka tegey iyo ubadkaas sirro adeerkii abtigaan u wadanahay iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan anigu shakhsiyanka cabdixafiid ahaan inaan uga tacsiyeeyo walaalkaas Soomaaliyeed ku dhintay asagoo dadkiisa iyo dalkiisa u istaagaya iyadoo in fara badan oo ka mid ah dadka Soomaaliyeed ay ku mashquulsan yihiin waxyaalo dalkeena iyo horumarkiisa midna baan ka shaqeynay laakiin asagu u taagnaa habeen iyo maalin inuu arko dadkiisa iyo dalkiisii oo horey qaaday wuxuu ku dhintay baan oran karnaa wixii ugu fiicnaa qof ku dhinto asagoo haya asagoo nin salaaba ilaahay ku xiran haddana dalkiisii u shaqeynaya ereyga u dambeeya haddaan ku siiyo axmedow maxaad oran lahayd intii aan dhihi lahay oo ugu muhiimsanaay waan iri dadka Soomaaliyeed tacsida na soo gaarsiiyey dadka Soomaaliyeed action ka bixiyey jacaylkii walaaltinimada muujiyey qofka waxaa la yiraahdaa marka uu dhimanaa waxaa la fiiriyaa dadku sida ay adduunyada ugu jeclaayaan meeshaas waxaa ku muuqata Cabdixakiin inuu waa nin dad jecel nin maaragtay dad qaraabo xariis badan nin farxad badan oo soo kornay waqti badan isla soo ceeshnay daqiiqad hadal nooma kala qarsoonay wax kastaan ka sheekaysan jirno macquula ilaahay subxaanahu wa ta'aala Cabdixakiin ha naxariisto dabadiisna ilaahay ma fitneeyo qof kasta marka waxaan rabaa inaan halkan uga sheego qof kasta oo Cabdixakiin wax ku lahaay oo wax ka tabanayay qofkii cafiyana inaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala ajar ka siiyo qofkii kale wax ku lahaay ama deyn ha noqoto ama hawlaha noqotana in xiriirkeena waa furan yahay inay nala soo xiriiraan rabaa inaan u sheego dadka daawadayaal waa maqlaysaan in aan fariinta la dirayo waxa weeye marka hoosta laga xariiqo inaan dadka la isku soofaynin inaan la oranin suu Axmed ba sheegay arrin qorshaysan bay ahayd assassination bay ahayd waa loogu talagalay ciidamada laga warsugo dadkana aan la isku dirinin qof kasta oo Soomaaliya naga mid ah dhibic dhiigiisa ama sharaftiisa ka mid ah inay maxay daalato ama dhaawac soo gaaro cid doonaysa ma jirto inta naga dhimatay waa nagu filan dadka baraha bulshada jooga oo ummadda isku soofaynaya iyo dadka sida gurcan uga faa'iideysanaya geeri iyadoo ay taalo muwaadin Soomaaliyeed oo 3 carruur yar yar oo saqiira ka tagay tacsidiisii ay taalo in la siyaasadeeyo ama maaragtay wajiye foolxun loo sameeyo si dadka la isaga horkeeno xaqiiqatan wax laga fiican yahay weydiinteena ka soo horjeeda axmed aad baan kugu mahadcelinayaa qayb qaadashadaada barnaamijkan iyo waqtigan aad nasiisay adiga odayaasha ikhtiyaarta kula jooga waa mahadsantihiin rabbi cabdixakiin cabdiraxmaan dhagajuun waxaan uga baryaynaa darajada ugu sarreysa inuu jannada ka siiyo samar iyo iimaan baan idin leeyahay barnaamijkan waxaa idiin soo saaray cabdifataax cali shirwac waxaa idinla socodsiinayey aniga waa cabdixafiid maxamuud jaamac intaan kanoo kale dib ugu kulmi doonana waxaanu leenahay rabbi marxuumka u raxmado asalaamu calaykum waraxmatullah